xoog iyo khasab markii hore ii geli dhibaato injiiti dhibaatadii ama ku bahasi aan lahay dhibaatadii aan ku bahlaay intii kuleel oo dhibaato hay'ad ku dugudi masaakinti la dhamaayahay masaakinti nin daryeelan masaakinti nin daryeelan oo aragi jihad an hayn walaasha federation iyo dhibaato burburis iyo yo hani oo miir an hay in nooladaayaan unun bacni rafaadni balaantan unun gaajina dhamaaytii adna noo dugudi walayba hay'ad hayn noo dugudi gaajidaas rafaadkaas dhibaatadaas aan ku bani hatan ilaahay hadii ero in aan gaantaan kornaneen gaado waana nolol fiican aradba nolol nidaam iyo sharaf iyo wanaag wadankan aan dhawaayo yaa ka koobe My time with Al-Shabaab was very tough. We didn't get anything to eat and were only allowed to sleep for 4 hours a night. We were told to kill women and children, to blow up churches and other buildings. My heart told me that it was not good and that I needed to run away. I have lost 6 years. The people who I was with in high school, they are in university. They are in the town, and if you see them, they are hopeful. Before I get to 30, I hope to catch up with them.